بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaan ku joognaa maanta shir ay qabteen beelweynta Muuse Ismaaciil Garweyn ee degta Somaliland barigeeda waxa kan la jooga Cabdiraxmaan oo kamid ah odayaasha ama dhalinyarada aniladabe ka soo qayb galay shirka kana yimi magaalada Liverpool wuxuu kamid yahay dadka soo qabay shirka bal looga waran shirka sidoo dhacay iyo waxa laga soo saaray qodobo shirku wuxuu dhacay si aad iyo aad u qurux badan oo runtii aan filaynba inuu sidan u dhici doono oo aad iyo aad u ballaaran ayaa la isugu yimi beesha Garweyn ee Muuse Ismaaciil oo dhan UK isaga timi gobol walba Liverpool, Manchester, Bristol, Sheffield, Birmingham, London intaba isugu timi goobtan waxay ahayd London shirka runtii aad iyo aad buu ballaaranaa muddo socday qodobada kaliya ee focuska la saarayna wuxuu ahaa in taageero buuxda la siiyo shirka ka dhacaya magaalada Erigabo ee Buurta Daalo ee quruxda badan halkaas ayaa shirkaas saas ayuu ku gabagaboobay in aad iyo aad waqti hore shirkana loogu talagalo wixii loogu talagalay loogu diro ayaa la isku raacay waxa kale oo runtii halka la isku weydiiyay oo loogu baaqayaa beelweynta Garweyn meel kasta ay joogaan America muxuu ahaayay Yurub kale in ay sidaas oo kale shirka u taageeraan oo dhaqaale xoog iyo xoolo waxay hayaan iyo fikradba ay ku darsadaan sidaas ayaa shirku runtii qodobadaas ayaa laga soo saaray waana la isku raacay Garweyn cid ka maqnayd ma jirin siyaasi oday dhalinyaro aqoon-yahan dumar cid ka maqnayd ma jirin aad iyo aad ayaa la isugu yimi si farxadi ku jirto oo qurux badan ayuu shirkuna ku dhamaaday shirku saad sheegtay waxaad sheegtay inuu yahay mid Muuse Ismaaciil Garweyn oo bariga Somaliland degta shirku muxuu xagga Somaliland mashii Somaliland wax yeelayaan soo shir ay reer kuun dooneed arkooda ka tashanayaan idanahooda ma runtii waa shir taneed weeye shirku oo ay reer kudanahooda ka tashanayaan faa'iidana u noqon doona Somaliland waxay ka soo baxa marraba ma aha runtii shirku mid Somaliland wax yeelaya waayo Somaliland waa gurigii beesha ayay weeye lafdhabar ayay beesha Habaryoonis u tahay Somaliland runtii marraba ma aha shir waxyeelo u keenaya Somaliland iyo qarannimadeeda waxa weeye danta hoose ee reerka ayuunba maartay taas ayaa la saxaya reerku muddo dheer ayaan shir yeelan 1965 ayaa shir ugu dambeysay beesha isugu timaado oo ay isugu yimaadeen magaalada la yiraahdo Oodweyne halkaas ayaa ugu dambeysay shirkanna waa shirkii soo labeeyay ee qarnigan runtii halkaas isaguna lagu qabanaya marka shir gormu dhacaya wuxuu dhacaya insha Allah ta'ala xilligii la iclaamiyay ee ahayd 29 bisha June ee sanadkan halkan waxaan ku wareysanaa Cabdalla Cali Cigaal oo kamid ah dhalinyarada reer Somaliland ee degan magaalada Bristol Cabdalla maanta waxa uu yimi halkan shir ka dhacayay oo ay lahaayeen beelaha Habaryoonis bari beesha Muuse Ismaaciil Cabdalla wuxuu ka ahaa shir gudoon Cabdalla iyo waxaad ka warantaa Cabdalla sidii shirku u dhacay ka waran maxaa maanta aad ka soo baxay shirkii weel xamsi oo fiican ma santahay marka hore waan kaaga mahadcelinayaa oo duweynanees inaad nagala soo qayb gashay waxaan kaaga mahadcelinayaa mar labaad inaad ruhaantii shirku xamso saad ugeed la socotayba wuxuu ahaa shir ruhaantii laga hadlayay ama lagu taageerayay shirkii dhamaan dhawaan lagu qaban ka furmi doona 9 June magaalada Erigabo kale ahaan Daalo shirkaas oo beelaha Habaryoonis ay doonayaan inay ruhaantii gooshiisa isugu yimaadaan shirka sida la socotay waxa martigeliyay HWP Habaryoonis bari gaar ahaan ibka qaybtiisa hore beesha Sacadoonis baa martigelisay cirifkan bay ugu shutaalay marka qaybtana qaybtiisii dambe waa fayskiisii ugu dambeeyay waqti dheerna waa la fadhiyaa shirkaasi haddaan ka yar oo bixiyo shirkaasi waxa weeye shir ruhaantii beelaha Habaryoonis ay dantooda ka wada hadlayaan shir maaha yani dadka wax bay sheegaan laakiin waxaan cadeynayaa afka ku cadeynaya anigu ku hadlaya afka beesha maanta ku shiraysay West London inaanu hay shirkaasi shir wax lagu burburinayo shir laga soo horjeedo xukuumadda Somaliland wuxuu ahaa shir lagu taageerayo midnimada iyo wadajirka iyo wada qabsiga beelaha isugu imanaya halkaa waa shir ruhaantii Somaliland aan wax ka inuu yahay
wixii wanaagga soo kordhay dambi uu yahay waa shir aan arko dan inuu yahay qoladan gogosha dhigtay iyo qolada loo dhigaba beelahaasoo ka wada hadlaya dantooda marka waxaan jecelahay in maanta yani uu si wanaagsan loogu dhacay waa runtaa qabanqaabadiisii horaa loo galay beelaha kale habrionis kale UK isna qabanqaabadiisii ku jireen iyo ruhaantii shirkii Sheffield ka dhaco kale waad joogtay kolka shirkana wuxuu daba socday shirarka waa shir loogu gol xaray lagu taageerayay shirka furmaya bisha 9-keeda marka maanta alxamdulilah rabbil caalamiin waynu wada soconaa xukuumaduna way fasaxday iminka presidency ayuu ku mahadcelinaynaa isku dayo hore wuu jiray laakiin finally waxaad moodaa maanta in lagu guuleystay in si loo wada arko shirkan inay xukuumadana dan ugu jirto anigana dan ugu jirto oo Soomaalidu waxay tahay wixii ugu shadan u ah baa ilmaha la talada marka midnimada Soomaaliland waxaan leenahay FIFA waxaan leenahay wadajirku ha jiro Somaliland ruhaantii ana shirkan ka shakiin beelaha kale Somaliland ka shakiin khayr baa ka soo socda waxa weeye shir lagu gal xarayo oo dimuqraadiyadda iyo ruhaantii wadajirka Somaliland mana aha shir wax lagu taageerayo urur aan dadka qaar baa waxay sheegaan urur baa lagu reebaya ururna waa lagu soo saaraya taas waxaan u caddeynayay jirin shirkan shir siyaasadeed maaha waa shir dhaqan waa shir wax wada qabsi kolka waxyaalahaas badan ayaa maanta laga hadlayay Cabdulle aad baad mahadsantahay waxaa jirtay maanta dad badan baa ka soo qayb galay shirka waan arkayay ka yimi magaalooyinka dabadaha ee London ay ku jirto Bristol Sheffield Birmingham iyo Manchester qaar kale oo xitaa ku jirtay waxaa ka jirtay xitaa qaar Mareykanka ka yimid arkayay rajo intee laga baad ka qabtaa shirka ka dhacaya May bisha 9 haddii Ilaahay dhahdo inuu keeni doono xamsi aan ku soo shirku ka dhacay doona horta marka hore daalo shirku waxa weeye shir ruhaantii yani Ilaahay subhanahu wa ta'ala ruhaantii saan ka warhayno Ilaahay dankiisa inuu qabsoomayo 9 Juun waa shir ruhaantii keeni doona wax wada qabsi wanaag iyo isku duubni waa shir aan cidna mucaarad yani laga keenayn waa shir ruhaantii anaga xamsi oo shirkan mucaarad leeyahay beesha ka soo jeeday shirka murtigiisa baan nahay alaama Ismaaciil Fariid deemaana murtigiina haduu yahay shir wax lagu diminayo waa laga yaabaa in mucaarad yani uu yiraahdo oo kale laakiin maaha yani ma noqonayno meel dee mucaarad dufayska dhigto taasaan caddeynaya laakiin waa shir mucaarad maxaafid bil isugu keenayo kolka waxyaalahaas oo dhan baa ruhaantii shirku yani muhiimadiisa weeye maxaad ugu baaqaysaa dadka kale ee shicibka reer Somaliland ee degan dalkii hooyo ee doonaya shirkan aad u xiiseynaya ama doonaya inay ka qayb qaataan wallahi xamsa wad maasantahay beelihii reer Somaliland ee hore wada u tagay shireen beeshii madaxweynuhu ka soo jeedo waa tii kala ku shireen ka hor intaan madaxweynuhu election-ka gelin go'aamo iyo arrin bay meel ku keeneen oo kuwa ku keenay ugama xumin ku hamreynaa beelaha dhexe Somaliland way shireen iyana way ka shireen dantooda kana dan ba laga shiraya runtii laakiin wax duminaya wax Somaliland mucaarad ku ah iyo wax ku xumeyn maaha waxa weeye waa shir ruhaantii beelaha Somaliland maanta lagu wada qabanayo waa shir doonayo in ruhaantii beeluhu yani ay kaga wada hadlaan wixii dhexdooda aad baad mahadsan Cabdulle si wanaagsan baad mahadsantahay sida wanaagsan ee ka aqbashayna waraysi ka qaadno insha Allah markan xiga ayaanu inta waraysi ka dheer idiin soo gudbin doonaa waxa Axmed Salaan magaalada